ka joogtaan kula soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka dowladda dalka Iran ayaa lagu soo waramayaa jasiiradda caanka ee Diego Garcia ee markaas xarunta military u ah dowladaha waaweyn ee Mareykanka iyo Ingiriiska inay weerar ku qaaday. waana markii ugu horeysay oo weerar noocan oo kala la sheego isla mar ahaantaasna waxa muuqata dagaalku inuu faraha ka baxayo. qodobka koobaad ee barnaamijka ayaynu kuugu soo gudbin doonaa haddii alla yiraahdo. dhanka kale dowladda dalka Mareykanka madaxweynaheeda ayaa sheegay inuu 450 ciidamo tababaran si gaar ah u tababaran loo dirayo dalka Iran, waxayna wararka qaarkood ay sheegayaan inay baadi goobayaan waa sida hadalka loo dhigay 450 kilogram ee maadada uraniumka ee nuclearka laga sameeyo ee cirib iyo jaan meel ay dhigtay la yahay. Trump ayaa baadi goobaya dagaalkan dhabbihii uu ugaga bixi lahaa isla mar ahaantaasna uraniumkaas uu gacanta ku dhigo waxaa la leeyahay albaab uu ugaga baxo iyo guul inuu sheegto ayuu doonayaa xilli xaaladdu ay ku adag tahay. war culus oo ka soo baxay dowladda dalka Iran ayay ku sheegtay inay 55 meelood Iran ay galaacday weerarkii 7aad. baahin fara badanna ay tabinayso Herald kaliya maahan, Reuters ayaa tabinaysa, Wall Street Journal ayaa tabinaya iyo warbaahin kale ayaa warkan soo saartay. waxa ayna sheegeen warbixin ay gacanta ku dhigeen markaas in lagu sheegay in 2 gantaal ay dowladda dalka Iran ay ku weerartay saldhigga military ee jasiiradda Diego Garcia ee markaas Mareykanka iyo Ingiriiska xarunta u ah. hase yeeshee khasaare ka dhashay duqeyntaas ma jirta ayaa la yiri. sidoo kalena daawadayaal warbixintan ayaa waxa ay sheegtay in ay saaka aroortii xilliga haatan aanu barnaamijkan duubayna arrintaanu ay dhacday sida Wall Street Journal uu sheegayo, waxaana intaas lagu daray khasaare ka dhashay inuusan jirin oo gantaaladaas mid ka mid ah xilli uu hawada ku jiray markaas uu fail garoobay ama uu fashilmay, midka kalena markaa laga hortegay. inkastoo aysan muuqanin markaas interception lagu sameeyey, haddana gantaalkaas kalena hadafkiisii ma uusan haleelinin. warkan waxaynu u baahanahay khiyaaray inaanu in yaroo daqsi loo xiiro dhinacyo kala duwan aynu ka eegno. marka ugu horeysa aynu u qaadano warkaanu inuu dhab yahay oo Iran ay arrintan samaysay. waxa Iran timida waa u imaan doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan sawir buuxa aynu ka qaadano. Iran inay weerarkan fulisay ka soo qaad in inverted commas. su-aasha koowaad waxa ay tahay waa maxay danta ugu jirta dowlad NATO ka tirsan in ay markaas xarun military oo iyadu ay maamusho jasiiraddan waa boqortooyada Ingiriiska in ay Iran weerar ay ku qaado dabadeedna NATO oo dhan ay qiil ay ku soo weeraraan u helaan xilli dagaalkan uu sharciyada ka arridan yahay isla mar ahaantaasna taageero uusan haysanin. NATOna ay tiri dagaalkeeni ma ahan beri ay ka noqotay. waa maxay sababta Iran albaabkaas ay isugu furayso? now shaki miyaa ku galay iyo rakaadi? ma laga yaabaa Iran weerarkan inaysan qaadanin haba yaraatee, maadaama qofka laga soo xigtay warkan uu yahay US officials, hal qof maaha, waa qof iyo waa 2 iyo wax ka badan, oo arrintan qiil loogu raadinayo Donald Trump dagaalka in loo xalaaleeyo oo shacabka Mareykanku ay taageeraan oo la yiraahdo Diego Garcia ayaa la soo weeraray. waa su'aal kale oo waqtigeedii iyo booskeedii taala. maxaa yeelay Iran waxaa la leeyahay wax dana uguma jirto in ay jasiiraddan weerarto xilli NATO ay ka gaabsatay weerar inay ka qayb qaadato Iran loogaga hortegayo. so far waxaa la yidhi gantaaladaas wax khasaara oo ka dhashay naf iyo maalna ma jiraan, waxaana muuqata muuqaalka hadda warbixinta hortiina ka muuqata marka la eego in markaas ay 2 gantaalba aysan hadafkoodii aysan asiibinin. waayahay halkaa iigu yarahay. haddaba haddii aynu dhinaca kale eegno dowladda dalka Iran, waa maxay warka ka soo baxay ee ay sheegatay haatan oo ay tiri markaas weeraro 6 ayaynu qaadnay? Iran ayaa hadlaysa. haddaba waxaan idinkula wadaagayaa qeybtan Iran waxa ay tiri, balse haddii warkaanu dhab uu yahay su-aashu waxay tahay artikalka 5 ee NATO
oo qoraya haddii dowlad neto ka mid ah lasoo weeraro dowladaha kale inay kasoo qayb qaadanayaan arrintaasu ma dhici doontaa mise ma dhici doonto waa su-aal ayadana in la isweydiiye mudan xilliga haatan barnaamijkan aynu duubayno dowladda ingiriiska war ka soo baxay oo sugan oo arrintan ku saabsan oo soo baxay ma jiro inta aynu ku guda jirno isha waynu marin doonaa laakiin hadda xilligaan duubayno war ma jiro iiraan maxay tiri iiraan ayaa qaaday weeraro lixaad leh sida halkan aad idinkaga muuqataba waxayna sheegeen markaa dowladda dalka iiraan in ay weyfkii 7aad ay qaadeen oo argosi ah weeraradii 7aad garo weeraradu kolonyo ayay iskula socdaan oo gantaaladoodu waa raxan daas erigan raadinaya raxan ayay iskula socdaan waana argosi weerara ayay tiri iiraan ayaynu qaadnay waxaynu ku qaadnay ayay tiri xarumaha maraykanka iyo israa'iil iyo danahooda bariga dhexe ka yaala wadamada golofka ayaynu ku qaadnay 55 location ama goobood oo kala duwan ayaana duqaynay ay yiraahdeen iiraan ayaa hadlay ilaaladeeda kacaanka waxaana warbixintan daabacday markaas warbaahinta afka ingiriiska ku hadasha ee dowladda dalka iiraan ee Press TV ayaa daabacday waxa ayna sheegeen markaas qaraxyo waaweyn in la maqlayay iyo weliba qiiq iyo uura cirka isku shareeray ayay warbixintu intaa ku dartay oo hadafkoodii xaleelay in inverted commas waa dowladda dalka iiraan weeye right now waxaa ii muuqda warar sheegaya israa'iil nooradkeeda waqooyiga israa'iil inuu wiish ku qaylinayo ama seeriga uu qaylinayo oo dukhaymo horla ay hadda ku socdaan oo kuwan qaar ka mida miya ma kuwo ka horreeyaba ma kuwo ka dambeeya we really don't know laakiin weeraradaasu dhabaha ayay kusii jiraan arrintan ayaa kusoo beegmaysa daawadayaal xilli diyaaraddii F-35 ka ahayd maraykanka ee iiraan ay sheegatay inay soo riday shalayto la leeyahay bayloodyadoodii waday hadday ahaan lahaayeen kuwa israa'iil iyo kuwa maraykanka hadday ahaan lahaayeen labaduba cabsi weyn ayaa soo food saartay oo diyaaraddan waxay noqotay diyaaradan la isku halayn karinin waana markii u horreysay ee taariikhda diyaaraddan la weeraro oo weerarkaas dhaawac uu kasoo gaara diyaaradda Larry Johnson oo horey u ahaan jiray sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka gaar ahaan kuwooda CIA-da ayaa waxa uu sheegay weerarkaas inuu macnaheedu ka dhigan yahay hal arrin oo keliya taasoo ah inay iiraan gantaalka la haleeshay oo la qarinayo marka bayladaas waxaa la leeyahay waagii hore waxay doonaan hadday hawada sare ku qori jireen haatan waxaas waxba kama jiraan balse wararka dadka madaxa bannaan ay sheegayaan waxay leeyihiin iiraan hawadeeda wax walba lagu qoray markii horeba dhamma ahayn iyo gantaaladeeda la burburiyey now aynu isla eegno jasiiraddan Diego Garcia meesha ay ku taalo halkan haddii aad eegtid Indian Oceanka meeshaan calaamad saaran tahay I'm sure inaad arki kartaan right so you can see bear with me jasiiraddu waa taas so haddii aynu ka gudubno Arabian Sea-ga aynu ka gudubno meesha ugu horeyso ee dhul iiraan ay leedahay ay ka gasho ay kaga aadan tahay waa halkaas so we talking about 4,000 oo kilomitir ayaanu ka hadlaynaa oo laynka halkan kaaga muuqda I'm sure inaad arki kartaan khiyaara iyo dulqaata laynkan halkan kaaga muuqda ee jeexan oo dhan waa dhulka iiraan weeyaan kor soo mar waqooyiga iiraan tag meeshay turkiga iska galaan syria kasoo noqo ciraaq soo dhaaf kuwait soo dhaaf qatar soo dhaaf baxrayn soo dhaaf imaaraadka soo dhaaf cumaan intaasoo dhan waa dhulka iiraan weeyaan aad iyo aad dhul weyn weeye meesha ugu sokaysa waa 4,000 oo mayl ee dhulka iiraan ay ka galaan isfahan haddii aynu tagno that's right there is isfahan tahraanna warkeedaba daa waa ftabciid bay ku taallaa we talking about 5,000 oo mayl iyo ka badan weliba ayaanu ka hadlaynaa marka meesha weerarkan laga soo qaaday waa haddii iiraan ay soo qaaday hoosta ka xariiq iiraan warbixinteedii aanu akhrinay kuma jirinin Diego Garcia ayaanu weerar ku qaadnay mar raba maysan oranin at this point in time during the recording of this video so iiraan inay intaa soo jibaaxdo oo halkan ay timaado khubarada madaxa bannaan waxay leeyihiin arrintaanu qorsho kala weeye ee ma ahan weerar iiraan ayadoo weerari karta imaaraadka horeyna u weerartay kuwait
Bahrain weerartay. wadamada hadda Iiraan ay weerartay ay sheegatay waxaa ka mid ah Sacuudiga, waxaa ka mid ah Qatar, waxaa ka mid ah Imaaraadka, waxaa ka mid ah Bahrain oo fifth filiidka dowladda dalka Mareykanka ugu weynaa uu ku yaalay oo maalmihii u horreysay weerarka Iiraan ku qaaday. intaasoo dhan way sheegtay iyo inay Iiraan weerartay. su-aasha Daawud aan jecel inaan ku weydiiyo maskaxdan inaan ka shaqeynin loo baahanya waxay tahay maxay Iiraan intaasna u sheegatay? weerarkii 70aad 55 meelood ayaanu duqeynay. Diego Garcia ma xusinin homeworkaas ama arrintaas adigu shaqo guri u qaado, qoraalkana hoos igugu reeb. waayahay waa maxay wararka kale ee aynu u baahannahay in aynu isla eegno haddii aynu Diego Garcia ka baxno? wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Jaal Cabbaas Caraaji ayaa sheegay, Reuterska u sheegay shalay xalay fiidkii u sheegay, markaas sida Reuters ay soo xigataan ilaahdee ayuu wuxuu sheegay Strait of Hormuz inuu u furan yahay loona ogolaaday dowladda dalka Jaban. shalay ra'iisul wasaaraheedu waxay fadhiday aqalka Oval Office-ka ayay fadhiday, Trump ayay la fadhiday. arrintaan inay soo socoto waa ogeyd. Trump wuxuu isku dayay inuu yidhaahdo dagaalka nala soo gala, waa ka cagajiiday. dowladdaanu dagaal waa taqaanaa, meeshii hadda kahor sida wada loo duqeeyey. waxba yaana warku ugu daarinin. Cabbaas Caraaji wuxuu yidhi albaabadu waa u furan yihiin. shidaal baartay Soomaaliya inaad halkan la martaan ama anaga naga gata ama meel kale ka keensada, albaabkana waa idiin furan yahay. laakiin Hormuz keenu naqaanay maahan. Iiraan waxay soo rogtay canshuur inay ka qaado. albaabkayga cid maraysa malahan ayay tiri. hadda kadib dagaalku hadduu dhammaado iyo haddii uu socdoba hadday marayaana canshuur ayaan ka qaadayaa. Israa'iil wax u socda ama ka yimaada ama Maraykankana albaabku waa ka xiran yahay. Donald Trump wuxuu ku guul daraystay cunudii militariga ee ugu weyneyd inay albaabka yarkaa ay fudho. waa ku dhicilaya. waayahay waxaa kale oo cusub oo iyada laftigeeda muhiimad gaara leh. warkan Al-Jazeera ay qoraysa saaka ayay waxaa lagu sheegay in Donald Trump uu markaas fursadaha uu rogrogaya ay ka mid tahay markaas inuu gacanta kusoo dhigo Iiraan nuclear stockpile-keeda inuu gacanta kusoo dhigo. oo Donald Trump administrationkiisu is considering istaraatiijiyadaas ku saabsan sidii gacanta loogu dhigi lahaa ama looga soo saari lahaa gebigeedaba oo meeshaas gacanta inta laga soo qaado markaa gacanta lagu soo dhigi lahaa. meesha ay agabkaanu yaallo cid taqaanaa ma jirto. shakhsiyaad fara ku tirisa ayaa la sheegay oo Iiraan midineeda daabkeeda hayo oo lagu kalsoon yahay oo la sheegay inaan looga baqaynin inay wadamo kale sir la wadaagaan iyo waxyaalaha la midkaa ayaa gacanta ku haya. US broadcast CBS ayaa reportka soo gudbisay. decisionka iyo go-aankaas ugu dambeynta lama qaadanin. if I know anything markay dowlad tiraahdo waxaasaa laga yaabaa inaanu samayno, go-aanna lama qaadan. macnaheedu waxay tahay go-aanka waa la qaatay. inta badan sida dhacda going back to taariikhda, dowladdu hadday tiraahdo waxaasaan samaynaynaa ama laga soo xigto oo warbaahin lagu kalsoon yahay ay soo xigato, macnaheedu maaha warbaahintaanu waa warbaahin dhexdhexaada kama wado, laakiin inay warkan Maraykanka ka soo xigato oo ay soo gudbiso oo administrationku haatan arrintan rogrogayo waa war weyn. warbaahin kaloo qoraysana waanu aragnay. marka waxa uu doonayaa inuu halkaa geeyo ciidamada special forceska ah, inuu halkaa geeyo oo dabadeedna markaas uraniumka la baadi goobo, gacanta lagu soo dhigo. odaygii waa dilnay, uraniumkii waa soo qaabsanay, guul ayaan gaaray, lagu kala tago. laakiin Iiraan jilib ayaa u laaban iyo laba midnaba. Hormuusna waa u xirnaanayaa, duqayntana waa wadaysaa sida wararku ay sheegayaan. oo uraniumkana nabad baanu rabnaa. Iiraan waxay tiri nabad waa rabnaa laakiin shuruudo ayaa nabadeena ku xiran. xabadood joojisid iyo ciddii markaa damaanad qaadi lahayd in ay markaas dagaalkan uusan soo rogaan celin oo mar saddexaad aan godna laga qaliinin waa inaad keentid, iyo cunaqabatayntoona laga qaado. saddexdaa midna Trump inuu yeelayo ma muuqato. wuxuuna ku khasban yahay dagaalka inuu ka baxo oo soo gabagabeeyo. isaga wuxuu yidhi xalayto dagaalku gabagaba ayuu joogaa, qarka ayuu saaran yahay. wasiirkiisa gaashaandhigu wuxuu yidhi dagaalku hadda ayuu bilowday, waa cusub yahay. wararka hooseo Maraykanka ka soo baxaya waxaa leeyahay Peter Hicks oo wasiirka gaashaandhiga ah oo la celin la'yahay
hadalladu ku hadlayo ee gafka ah ee aan loo aabayeelin waxaa la leeyahay dagaalkan hadduu dhammaado liiska wuxuu ku jiraa dadka markaas xilka laga qaadayo. Obviously we have no proof of that, laakiin warar maraykanka laga helayo iyo dad xogaale ayaa soo gudbiyey. maxaan kaloo oo barnaamijkeedii kugu haynaa waayahay intaana wax kale u gudbin daawadayaal hal mar aynu isha marino wixii kusoo kordhay arrintan Diego Garcia, because arrin muhiimad gaara leh oo aynu u baahannahay inaynu ogaano weeye xaqiiqatan. martaa joojiyaha igu hay. وهاجاك داوديال هدبا رويترز iyo warbaahinta kala duwan ayaa qoraya warkan haatan laakiin wax ku soo kordhay oo ii muuqda ma jirto oo ku saabsan wararkan inay Iran markaas ay Iran la sheegay inay Iran qaaday warar ku soo kordhay ma jiro laakiin hal arrin oo muhiim ah oo biyo kama dhibcaan idin kaga tagaya. Abbas Arachi afkiisa wuxuu ka yiri gantaaladeena kuwa ugu ridada dheer waa soo hadalka u dhigaya waxa ay gaaraan ilaa iyo 2,000 oo kiiloomitir oo ah markaas ugu shisheyn Israa'iil ardayga Israa'iil ay soo taaban karaan. Israa'iil meel ka shaqeyso oo gantaaladeedu gaaraan malahan waxaana hadalka loo fasiray inuu leeyahay Yurub gantaala gaara ma haysan Mareykan warkiisa lada. haddii haddaba warkan uu dhab yahay oo Diego Garcia ay weeraray 4,000 oo mayl ay u jirto Iran wax badan lagama oga waxa u qarsoon oo hubka ay haysato Iran inuu intaa ka badan yahay kana tayo dheer yahay kana markaa ridad dheer yahay ayaa la sheegay. gantaaladan sidoo kale waxaa lagu sheegay inay yihiin mid range inay yihiin kuwa dhexdhexaadka ah inay yihiin ridadooda dhexdhexaadka ay tahay. kuwa ridadooda dheer tahay maxay gaari karaan haddaba su-aal weeyaan. marka Iran wax badan ayaan lagu ogeyn xogteeda iyo sirteeda 80-meeyadii dagaalkii Ciraaq ay la gashay ayay darsi ka baratay ay khibradu leeyihiin waagaas ilaa ay xaatana waxa ay dhisanayeen waxa maanta aad aragteen ay ku dagaalamayaan. diyaaradii F-35 ka ahayd ee shalayta la sheegay inay Iran ay sheegatay inay soo riday ayada laftigeeda waxaa la sheegay qiiqa dabada ka baxaya diyaaradda meeshay naqaska ka saartay ee holaca ka baxayo Iran inay la timid markaas maadaama diyaaraddan reedaaradeedu ay meel fog ay wax ka arkayaan gantaal usoo dhawaan kara aysan jirin taariikhdana aan la soo ridinin dhaawacna aan horey loo gaarsiinin diyaaraddan waxay Iran la soo baxday ayaa la yiri code and code heat seeking missiles waxa la yiraahdo gantaalada markaas kulka baadi goobta oo marka gantaalka la rido cirka meel kastoo dusheeda ah ayuu wuxuu baadi goobayaa meel holac ama qiiq uu ka baxayo ama kuleyl uu ka baxayo diyaaradoo sii jeeda ayuuna gantaalkaas gadaal kaga dhacay ayaa la yiri oo haatan waa sababta ilaa haatan diyaaradu ugu dhicila ay yihiin ama la sheegay darawalada baylodyada qaarkood in ay markaa walwal ay qabaan. qaarkood dad kale sidoo kale waxa ay leeyihiin waa rough estimate laakiin waxaa la sheegay dhinaca kale baylod isku halayn kara diyaaraddan haatan inuusan jiranin meesha Mareykanku uu sheegay diyaaraddaanu inay tahay diyaaradda keliya ee maanta caalamku isku halayn karo ee ammaankaaga sugi karta oo uu ku dhaarto. khiyaarta sharaftii karaamada leh aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaa meel kastoo dunida ka joogtaan waxaan idin leenahay ciid wanaagsan mar kale nabadgelyo.